boqorku siyaasadiga ay soo baxdo waa meesheeda markaas aan ka jawaabay hadduu se ama dan u leeyahay u tago ama dhaqan u tago dadku ma xidhnaa dadka dhaqanku way deetay karaan qaar badan baa tago haddii dan uu ka yeesho waa meesheeda waxaa lagu eedeeyaa inaad ka tirsan tahay urur islaami oo guud ahaan Soomaaliland iyo Soomaaliyaba ka jira dad badan baa sheegay arrintaasi ma jirtaa ana waxaan soo aqaanaa inaan adiga iyo in badan oo intaa leeyahay ka dul badanayo ka dulqaad badan oo ka garasho badan kaaga jawaabi maayo hantida aad haysato maanta aad umada u sheegaysaa waa imisa mowqifka xisbigaaga ee ku aadan Soomaali weyn hadaad si kale u sheegto waa maxay hadduu boqorku siyaasadiga ay soo baxdo waa meesheeda markaas aan ka jawaabay hadduu se ama dan u leeyahay u tago ama dhaqan u tago dadku ma xidhnaa dadka dhaqanku way deetay karaan qaar badan baa tago haddii dan uu ka yeesho waa meesheeda waxaa lagu eedeeyaa inaad ka tirsan waxaan soo aqaanaa inaan adiga iyo in badan oo intaa leeyahay ka dul badanayo ka dulqaad badan oo ka garasho badan kaaga jawaabi maayo hantida aad haysato maanta aad umada u sheegaysaa waa imisa mowqifka xisbigaaga ee ku aadan Soomaali weyn hadaad si kale u sheegto waa maxay hadduu boqorku siyaasadiga ay soo baxdo waa meesheeda markaas aan ka jawaabay hadduu se ama dan u leeyahay u tago ama dhaqan u tago dadku ma xidhnaa dadka dhaqanku way deetay karaan qaar badan baa tago haddii dan uu ka yeesho waa meesheeda waxaa lagu eedeeyaa inaad ka tirsan tahay urur islaami oo guud ahaan Soomaaliland iyo Soomaaliyaba ka jira dad badan baa sheegay arrintaasi ma jirtaa kulanti waxaan oo wanaagsan daawadayaal waa barnaamijkeeni dhacday dhigaal barnaamijka toddobaadkan oo ah mid ka duwan barnaamijyadii hore ee aynu soo saari jirnay waxaa marti inoogu ah gudoomiyaha xisbiga wadani mudane xirsi cali xaaji xasan oo saacada ka hor lagu doortay hoolka shirweynaha xisbiga wadani uu ka dhacayay hotel Mansour nasiib ayaanu u yeelanay inaanu ka qabsano waraysigii u horeeyay gudoomiyaha mudane gudoomiye marka hore waxaanu kaaga mahad celinaynaa oo kugu soo dhaweynaynaa Horyal TV su'aasha ugu horeysa jeclayna ku weydiiyay waxa weeye bal taariikh nololeedkaaga oo kooban xirsi cali xaaji xasan waa kuma xaguu ku dhashay xaguu ku barbaaray xaguu wax ku bartay muddo hal daqiiqad aad ugu soo horseyntaa xirsi cali xaaji xasan waxaan filayaa dadkoo dhan inuu yaqaana buugna waan ku qoray buug dhammaan biography-ga nolosheeda ku qoray marka si kooban haddaan ku yiraahdo waxaan ku dhashay meesha la yiraahdo miyiga Burco waxaan ku barbaaray koonfurta Soomaaliya waxaan ku bartay koonfurta Soomaaliya waxaan soo noqday xiliyadii ay dagaaladu ka qarxi doonaan ama SNM ay dagaaladu ka qarxi doonaan baan soo noqday SNM baan ku beeray sidii baan markii dambana dalka lagu qabsaday markii dambana waxaan u jeestay in noloshayda yani aan u jiheeyo shaqo iyo waxbarasho iyo reer iyo nolol dhisto kadibna waxaan bilaabay business waxaan waxbarasho shaqo reerinan iyo galeelo waan ka soo gudbay waxaan muddo kadib shaqo u shaqeeyay shirkaddan caanka aad og tahay oo 94kii shaqada u bilaabay dahabshiil muddo dheer oo 12 sanada 20 sano ku dhow shaqeynayay waxaan meesha la yiraahdo akhiiran soo galay komishiga doorashooyinka qaranka shirkadda dahabshiil xilal kala duwan baan ka soo qabtay laakiinse komishiga doorashooyinka qarankan joogay muddadii 2007 ilaa 2008 baan sangareeyay oo iskay uga tegey waxaan markii dambana sii waday kulmiye iyo aan la sii shaqeeyo kala sii shaqeeyo ololihii iyo doorashadii markii uu ku guuleystayna waxaan ka mid noqday dowladda 5 sano iyo badh meelahaas aan ku jiray waan ka tegey 2015kii ayaan ka tegey bishii 7aad 30keedii waxaan ku biiray muddo kadibna xisbigan iminka aan gudoomiyaha ka noqday ilaa xilliga ilaa maantana xisbigan baan ka tirsanay waxa gudoomiye maanta waxa lagu doortay gudoomiyaha xisbiga wadani bal dareenkaaga arrinta ku saabsan looga waran dareenka arrinta ku saabsan aad baan runtii ugu faraxsanahay inay waxa ay moodeen oo ay ii doorteen oo igu maamuuseen ama la iga sugay inaan hogaamiyo iyadoo dad iga mudani joogaan marka labaadna culays baan jiro dabcan mas'uuliyad baa la saaro ilaahay wax ka baryo inuu garab galo gudoomiye mas'uuliyad culus baa lagu saaray dabcan dad fara badan baa aragtiyo kala duwan ka bixiyay doorashadaada waxa la leeyahay intii tan iyo intii shirweynaha qabanqaabada socotay soo shacbaxday inaad tahay ninka u tartamaya gudoomiyaha xisbiga dareeno fara badan baa soo baxay dadka qaar baa leh heshiis laba beelood dhex maray buu xirsi ku noqday gudoomiyaha xisbiga qaar baa leh xirsi adduun iyo lacag buu isticmaalo taasoo ku noqday gudoomiyaha xisbiga sideed ku noqotay gudoomiyaha xisbiga waxaan ku noqday wax qariib ah ma aha
waxaan ahaa ninka saddexaad oo laba nin baa iiga sareeyay xisbiga labadii nin wuxuu ahaa aasaasi xisbiga oo Cabdiraxmaan oo wuxuu gartay inuu ka tanaasulo waxaan markii hore ugu ballan qaaday Cabdilqaadir Jirde Cabdilqaadir Jirdane isagoo sidoo sheegay waayihiisa iyo noloshiisa qiimeynaya eegaya waqtiga uu joogo xisbigana uu daneynaya buu ayuu ka tanaasulay inuu soo sharaxo marka hadda waxaan noqday automatically qofkii saddexaad buuxin lahaa jagada arrintan la leeyahay dhaqaale isticmaalay waxaas waa been yar xiisaanigi shirka kaga hadlayo waxaas waa wax yani hoos u dhigay qiimeynteeniyo hunguri ku dhisayo Cabdilqaadir Jirde oo nin caana oo soo shaqeeyay oo nin qaran ah waa wax laga yaqeeqsoodo in la yiraahdo lacag baa loo siiyay iyo lacag baa bixisay anigu haddaan lacag bixinayo maan markii hore bixiyay maxaan halkan kastaxaad u ahaa wax laga qajilo waxaas gudoomiye xisbiga lagu doortay dabcan siyaasad cusub iyo qorshe cusub iyo istaraatiijiyad cusub baa ku qorshaysan oo qaadanaysa maxay tahay waxa aad xisbigii ku soo kordhinayso siyaasadda aad ku hogaaminayso halka aad u dhaqaaqayso iminka hawsha ku taaleed wax ku bilaabaysaa maxay tahay qorshii xisbiga aan ku hogaamin lahaa iminka halka kaba soo wada gudbin karo laakiin sidii aan khudbadeedii ku ballan qaaday waxaan soo gudbinayaa guddiga fulinta ayaan u soo gudbin doonaa la wadaagi doonaa qorshe maamul iyo hogaamineed oo aan doonaya inaan ku hogaamino markaan isla eegno inta ay khusayso iyo musharaxa iyo guddiga fulinta insha Allah taala waxaan ku hogaamin doonaa qorshaha oo saldhig iyo xeerka xisbiga waxaad noqotay gudoomiyaha xisbiga wadani dabcan waxaa la saadaalinayaa inuu noqdo gudoomiyaha xisbiga wadani Maxamed Kaahin Axmed oo ah nin isku beel ka soo jeedaan isku deegaan ka soo jeedaan sidoo noqon doona markaa xaalka iyo tartanka idin dhex mara adiga iyo Maxamed Kaahin oo isku deegaan iyo isku beel hoose waliba ka soo jeedaan ma u malaynaysaa inaad kaga guulaysan doonto taageeradii beeshaada iyo deegaamada aad ka soo jeedaan waxa kala guulaysanaya aniga iyo Maxamed Kaahin maaha reerana maaha gobolana maaha waa xisbiya kala guulaysanaya xisbiyana tartamaya xisbiga wuxuu la tartami doonaa kulmiye kii doonaba loo dhiibay qofkii ama haya ka jooga ama ku kala loo dhiibay ciday u dhiibayaan xisbiga kulmiye anigu shaqadeeda maaha qof aanan yani iminka waxba aanan isku ama aanan isku xisbi ahayna hawshiisa inaan galaan waa laga fiican yahay laakiin waxaan kuu sheegi karayaa waxaanu diyaar u nahay inuu la tartano horena waanu la tartanay iminkana waxaanu diyaar u nahay la tartano kulmiye aanu kaga badino doorashada tala dalkan loo leeyahay doorashada soo socota ee sanadkan la filayo 2022 khilaaf badan baa ka taagan dad badan baa ma dhacayso dad waxay leeyihiin way dhacaysaa dad muddo kordhin bay hadlayaan mowqifka xisbigaagu muxuu yahay adiga ee arrinta ku aadan mowqifka xisbiga ugu horeyn in doorasho dhacdo oo doorasho in dhacdo waa sharciya wax soo dariyay ama wax ku soo kordhinay ma ogin ilaa hadda muuqaalka muuqanayana wuxuu noo muujinayaa in la raacay wadadii doorashada hadday xukuumaddu ka dudana markaas aanu ka hadli doonaa iminka inta noo muuqata waxa noo muuqata in wadadii doorashadu furan tahay oo aanay wax caqabadii hor oolin haddii cid caqabad samayso waa ogaan doonaa waxaan jirina lama sameeyo waxaa iminka muuqata in komishinka uu u yeedhay madaxweynuhu siday noo sheegeen uu yiri doorashadii baan qabanaya u diyaar garoob waa si anaga noo sheegeen komishinkiina way nala shireen waxay yiraahdeen madaxweynuhu waa diyaar doorashadu u diyaar garoob way diyaariyeen qorshihii iyo miisaaniyadiiba qorshihii waxaa la sheegay in ay qorshe ilaa 8 bilood diyaariyeen qorshihii ay diyaariyeen waa qorshe ku filan waqtiga inoo harsan ciddii kale yani dhaqaalaha laga sugayay xukuumadda ay haydo wasiirka maaliyadda weydiiyay anigu wixii budgetka waan ku daray sidoo kale baarlamaanka way naga soo gaadhay xogtaas inay ku dareen lacag 6 milyan maadaama budgetkii ay ku dareen wax ka dhiman way jiraan wixii ka dhinaana sida naloo sheegay komishinka naga soo gaadhay waxay u bandhigeen beesha caalamkuna niyad sami iyo waxay nagala qabanayaan oo ay wixii dhiman inala eegayaan oo inala qorsheynayaan oo isku keen barbar taagayaan bay sheegeen inta laga soo tabiyay ama go'aan iyo commitment bay sheegeen inay doorashada ka qayb qaadanayaan marka maadaama komishinkii beesha caalamka inaga caawinaysay dowladdii iyo budgetkeedii xisbiyadii oo diyaar ah anigu imka caqabad aynu afka ka sameeyno dagaran maayo marka waxaan rabaa wixii kale waxaan okay aynu ka gudubno dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda musharaxa xisbigaaga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro shalay wuxuu ka hadlay heshiiska Soomaaliland iyo Taiwan oo uu sheegay waxaan arkaa inay khaldan yahay ka haboonay dowladda China oo dowlad weyn oo super power oo fiito power leh in ay Soomaaliland wax la qabsato taama ku raacsantahay adigu soo kaga aragti doonta dee ma buu ka hadalba sida aad u dhigtay aan ku saxo
wuxuu ka hadlay waxaynu u baahnay ictiraafka Somaliland inaynu la kaashano dowladaha waaweyn gaar ahaan shanta dowladood ee waaweyn ee veto power kale ama diidmada qayxan iskale oo uu ka mid yahay China oo region ka shaqeeya China maadaama uu region ka shaqeeyo oo uu dhow yahay oo Ethiopia iyo Djibouti ka shaqeeyo aynu xiriirka wanaajino ayuu ku hadlay idilkoodna aan dowladaha dunida xiriirkooda wanaajino tusaale buu soo qaatay Taiwan inay tahay dalaan la aqoonsano aqoonsiga wax badan inaga tarmayso waxyaalo kale laga wax naga tartaa waa dhici kartaa laakiin sidoo lama aqoonsan dowladna waxa aqoonsan dowladda aqoonsan dowladda la aqoonsan inagu ma aqoonsan karo imka China baashi Taiwan hadday aqoonsan wax ku biirinayso marka diplomatically buu ka hadlayay waana nin diblomaasi oo taa aqoon u leh laakiin se wax gaara oo ma ceebayna ama caqabado cid gaara ku wajahan ma oran waa hagaag gudoomiye bari dhexdaas buug baad qortay cabashooyin badan baa ka yimi waxa lagugu eedeeyo dad badan ay falcelin ka bixiyeen inaad durtay oo wax ka sheegtay madaxweyne maxamed axmed maxamuud tiilaanyo dhawaan marar badanna sidan ka warqabo dambe waa kulanteen arrintaasi adiga wax saameyn ma kugu yeelatay maya mana durayo madaxweyne tiilaanyo waa macalinkaygii siyaasadda waa saaxiibkay waa shakhsi aan aad u jecelahay waana kala gaar warinta taariikhda iyo maaga qofku waa kala gaar in dhacdooyinkii iyo taariikhdii shaqo la soo wariyay waa kala gaar dibna waa noo kulanay horena waa noo kulmi jiray iminkana waanu kulmi doonaa wax cuqdada iyo wax arrinoo noo dhexaysaana ma jirto wax kastoo uu ka tabayeyna hadduu dhacdaba inuu ka tabana iminka iyo mar walba waan ka raaligelinaya xal iyo qoysiis baan ka siinaya maba jirto wax noo dhexaysa dadka taageerayaashiisa gaar ahaan kuwa ka soo jeeda deegaamada bariga burco ka soo wada jeedaan qaar badan baa la sheegay inay ka caroodeen arrinta cafis ma siinaysaa ayaga ma ka raaligelin ma ka siinaysaa war anigu dad raaligelin maayo anigu buug baan qoray anigu dadaan caayina ma jiro cidadaan xudhibina ma jiro buugaan qorayna kalsooni baan ku qabaa haddii ay dhacdaba in saaxiibkay siilaanyo ama reerkiisa ay cid ka taabatana oo cid dareenkaa yani ay si khaldan u arkaan boqolkiiba boqol baa ka raaligelaya laakiinse maba jirto waanu kulano wax dhib noo dhexaysa waa hagaag gudoomiye warar baa sheegaya xiriir qoto dheer inuu ka dhaxeeyo adiga iyo gudoomiye Ciro soo bixitaankii iyo aasaaskii xisbiga wadanina aad qayb ku lahayd arrintaas ma jirtaa de anigu xisbiyada Soomaaliland oo dhan waxaan joogay madaxtooyada yani wada shaqeyn baan lahaa xisbiyada Soomaaliland oo dhan waxaanan ahaa xafiiskii madaxweynaha ee ka shaqeynayay doorashada sida imika inuu u sugayna leenahay doorashadii ha israaciyo oo ha ka shaqeeyo oo budgetkeeda ha diyaariyo qofkii xafiiska madaxweynaha joogay ee kala shaqeynayay baa xilligaasna waliba ka duwaynado ururaha la furayo 2012 ama 2012 ururaha la furayo process bay martay ururada processka la maray waa loo yeeray waa la shiray waxa la yima furaa doodaanu qabanay waxaanu ka soo bilownay yani ilaa halka ugu hooseysa gobolada degmooyinka saas oo kale marka dadkii aanu la shiraynay la shawraynay يعني لا شقينا ahaa in laga wada shaqeeyo dimuqraadiyadda doorashada ay buu kamid ahaa waxaan ahayo dagaar isaga u ahayn oo laga yaabo in dadku ay qaldaan xiriir wanaagsan siyaasadeed baan naga dhexeeyay goos gudoomiye baarlamaanka ku ahaa ana madaxtooyada joogsan baarlamaanka xiriir wanaagsan baan naga dhexeeyay laakiin ma jirto ma taas wax de asaas xisbiga anu kamid anu kulmiya marka xilliga ahaa aniga la iguma yaqaano laba xisbiye kan taguma ka shaqeeyo waa hagaag waxaad ahayd madaxtooyada wasiirka ahayd musabixi cabdi gudoomiye xisbiga kulmiyo ahaa si adag baad uga soo horjeesatay murashaxnimadiisii ma wax shakhsiya oo idinka idin dhexeeyay labadiina ayaa jiray maya xaasha wax anaga shakhsi noo dhexeeya ma jiro laakiin se aragtida maanta yaa ku habboon iyo bari ku habboon ayaa lagu kala duwanaada taasaan ku kala duwanayno imka waan kaga duwanay imka waan aniga Cabdiraxmaan waday wali aragtidii ahaa cidda madaxweyne ka dhigayo waan Cabdiraxmaan wada mashkiilad noo dhexeysa ma jirto wahdaad mudane gudoomiye waxaa lagu eedeeyaa inaad ka tirsan tahay urur islaami oo guud ahaan Somaliland iyo Soomaaliya ka jira dad badan baa sheegay arrintaasi ma jirtaa anigu wax i weydiiyo waxa sheegayna ma arag waligeena urur islaami ma gelin xaba lagu eedeeyaa waligeena ma gelin buugeeda ma ku qoran tahay dadku ma yaqaan damar jadiid islaax dalkeena ma joogo intaan ka ogahay aniguna waligeena kama noqon urur islaami waligeena kama noqon waa hagaag dadku gudoomiye qaar badan oo ku dhalila waxay yiraahdaan xirsi waa nin fudud oo doortool badan adigu saamayso taqaana ma aniga soo aqaan saad soo taqaana ana waxaan soo aqaana inaan adiga iyo in badan oo inta ka dul badan oo ka dulqaad badan oo ka garasho badan taa markaynu ka gudubno gudoomiye waxaa jirta dacaayado fara badan waxaa jira dhaliilo fara badan
waxaa jira eedo fara badan oo nin kasta oo xil qabta loo jeediyo oo la yidhaahdo taasuu sameeyey taasuu ku kacay waa wax caadi way jirtaa waxyaabaha adiga lagugu eedeeyay ee dadku hadal hayaan waxaa ka mid ah xirsi wuxuu yidhi baa la yidhahdaa waxaan hay 40 jir 40 milyan haysta arrintaasi maadee kaa soo yeedhay dime waa been marar badan waan ka jawaabay weligii ma odhan afkaygana mas kama soo bixin mana haysto 40 jir ma jiro 50 baan ku weyn 40 ma jiro da'daana ma jiro lacagtaana ma haysto yani anigu baax mushtarina ma yihi anigu waxaan ahay siyaasi jaban uu tahay markii hore waxaan ka shaqayn jiray shirkadaha dalka iyo dawladda inta uu shaqayn jiray marka ma yihi qofka hantida aad haysato maanta aad ummadda u sheegaysaa waa imisa dii marka la weydiiyo waa diiwaan gelinayaa wixii aan haysto waan diiwaan gelinaya marka la weydiiyo ay noqoto doorkeeda laakiinse jeebkaaga maxaa ku jira dee waa qaad bas anigu shamaal qabay may taa markaynu ka gudubno guddoomiye waxa ayaan kaloo aan jecelahay inaan ku weydiiyo maanta hogaamiyihii xisbiga wadani ee rasmiga ahaa baa tahay guddoomiyennimadii baa laguu doortay awooddii guddoomiyenimo ee xisbigu miyay kugu dhan tahay oo lagu wada doortay mise xilalkii iyo mas-uuliyadihii iyo awoodihii xisbiga qaar baa kaa maqan oo lagaala hadhay miyaad sudigii nala joogay xeerkii markii la yeelinayo xeerka xisbiga ka eego xeerka xisbigu laba guddoomiye iyo laba musharax mu ahayn guddoomiye kale uu sheegay awoodihiisuna way ku cadyiin xeerka xisbiga guddoomiyuhuna had cad buu ka tanaasulay inuu hadduu doonayo baawar waxyar muu soo goostay inuu joogi lahaa marka guddoomiye xisbiga wadani anaa lay doortay awooddiisii iyo taladiisiina anigaa laga doortay ilahayna wax ka baryay inagu astiro guddoomiye cabdiraxmaan ciro waa murashax iminka hadduu doorashadaa ku dhaco oo ay tiisaba noqon weydo inuu ku guulaysto muxuu noqon doonaa doorkiisu horta waa oday xisbiga ah isagaa dee taa weydiinaysaa haddii uu yidhaahdo dib baan ugu tartamaya iyo dib baan u doonaya hala gaadho iminka lama gaadhin iminka isagoo ah ayuu isagu iskii uga tanaasulay berri wuxuu dooni doonana isaga weydiinaya marka dee waa waxaan la gaadhin taa kuma jawaabi karaan gobolada somalilan qaar badan oo ka mid a weli maamulkii somalilan si fiican uma wada gaadhin xisbigaaga maxaa uga qorshaysan iminka iyo mustaqbalkaba deegaamada somalilan ee aanay dowladnimada somalilan si dhaba uga hana qaadin maxaa uga meel yaalla waxaa uga meel yaalla barnaamijka xisbiga ku qoran yihiin waa barnaamij ballaaran haddaan mid laba ka xuso xisbiga wadani wuxuu doonayaa inuu gaarsiiyo maamulka ilaa halka ugu qoonaysa xuduud marba sidii suurtagal waxaanu xoogga saarayaa hanaanka siyaasadda oo aan qasab iyo xoog iyo ciidannimo aan ahayn sidoo kalena wuxuu horumarinaya xuduudda ciidanka iyo nabadgelyada iyo ilaalinta deganaanshaha ayuu horumarinaya laakiinse mar raba xalka ku dooni maya xoog wuxuu ku doonayaa hanaan siyaasadeed boqor buur madow oo ah boqor ka soo jeeda deegaanka aad ka soo jeedo muqdisho ka tegi muqdisho iyo somaliland xidhiirkeeda waad ka waraysaa sideed u aragtaa boqor cismaan aw maxamuud tegidda uu muqdisho tegey horta anigu warmahayo inuu tegey manaan xaqiijin adigaa warorta adigaa sheegaya anigu aanan ogeyn kaaga jawaabi maayo anigu inuu tegey oo uu jooga ma ogi waxaan kaaga jawaabi karayaa boqor cismaan hadduu tagay dhacdaba waa nin dhaqanoo dhaqanku ma kala xidhno maynaan maqal mee dhaqanka lagu xidhay dhaqanku inagana way inoo yimaadaan iyaguna way tagaan meel aynu dhaqanka ku xidhnay oo ku joojinay ma jirta siyaasadeen wixii siyaasad u socdeen xidhna boqorku hadduu siyaasi noqdo isu sharaxo oo iska sharaxo siyaasad u tago waa baab kale laakiinse soomaali dhaqankaynu wadaagnaa diintaynu wadaagnaa dhalasho iyo waxaynu wadaagnaa dhiig marka taaynu ku kala goodnay taa mahe waa siyaasadda laakiin waxaa la leeyahay guddoomiye boqorku wuxuu ka mid yahay madax dhaqameed loo xil saaray soo xulidda ergooyinka golaha shacabka soomaaliya ayuu ka mid yahay loo doortay taasuu halkaa u tegey marka taa macnaheedu siyaasad buu u tegey soo maa waxaan u arkaa anigu dacaayad rakiisoo boqor ka soo horjeedo oo qaar horaa markii horeba dooran jiro jooga maxay uga baahan yihin weligood way joogayeen maxay uga baahan yihin sabab kalifi karta boqorka uma arkee hadduu boqorku siyaasad u tegey oo ay soo baxdo waa meesheeda markaasaan ka jawaabaya hadduu se ama dan u leeyahay u tago ama dhaqan u tago dee dadku ma xidhnee dadka dhaqanku way dee tegi karaan qaar badan baa tago haddii dan uu ka yeesho waa meesheeda laakiinse anigu waraana nimanka ogeyn dee ka jawaabaya aynu ka gudubno waxa kale oo u sharaxaan hogaanka guddoomiyenimada xisbiga kulmiye xasan gaafaadhi oo isaguna ah murashax ka soo jeeda deegaanka aad ka soo jeedo labada murashax ee ku tartamaya ee ka soo jeeda deegaanka aad ka soo jeedo sidee kuula muuqdaan maxay se culays ku keeni karaan xisbigaaga
iyo hogaamintaada xisbinimo iyo doorashada aad geli doontaan mustaqbalka? waa shaqo xisbiga kulmiye u taalan aniga shaqo ii taal maaha kay doonaan ha doortaan aniga hore kaaga jawaabay laakiin culays ma idinku kii keenaysa yimaadaba anaga waxba culays imika soo booda joogaan anaga wax culays oo gaara badan lagu keeni maayeen kii yimaadaba oo la tartamay xisbiga wadani waxaa lagu xaman jiray oo lagu eedeyn jiray inuu u dhow yahay u janjeero dhinaca koonfurta Soomaaliya iyo dowladda Soomaali weyn. maanta hoggaan cusub baa yimi adaa xilkii qabtay haddii arrintaas hore miyay u jirtay haddii ay jirtay maxaad ka bedelaysaa? maba jirin waxaan jirin nagama jawaabo wax jira maaha oo anagu koonfur Soomaaliya waxna nagama xidhna wadanna wax kagama xidhna waxaasuna waa dacaayadaha iska raqiiska ah qaar kulmiye ahaabaa tago iminka jooga waxamar jooga oo kuwa golayaashooda ku jira jooga oo kuwa dowladda ku jiray baa jooga waa qof kasta oo reer Somaliland oo taga ama xiriir la yeesha waa qalad siyaasi oo dalka ka galay wax wadan ku shaqaleeyay mowqifka xisbigaaga ee ku aadan Soomaali weyn haddaad si kale u sheegto waa maxay? mowqifka anagu Soomaaliyeed mowqifka ku aadan waa Soomaali weyn waxa inaga dhaxeeya tartan Soomaali weyn inagu kama midnihin waxaynu doonaynaa inaynu kala madax banaanaano laba dalo walaalo aan noqono sidaa ku kala go'ono mowqifka dastuurka ku qorana waa ka waxaan ku shaqeynaa ka dastuurka shuruucda dalka ku yaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay gudoomiye waxaanu kaaga mahadnaqaynaa wareysiga aadna siisay waqtiga qaaliga aadna siisay si gaar ah kugu ixtiraamayna kugu mahadcelinaa kugu sharfaynaa thank you very much ana waxaan soo aqaanaa inaan adiga iyo in badan oo intaa ka dul badanayo ka dulqaad badanayo ka garasho badan kaaga jawaabi maayo hantida aad haysato maanta aad ummadda u sheegaysaa waa imisa mowqifka xisbigaaga ee ku aadan Soomaali weyn haddaad si kale u sheegto waa maxay? hadduu boqorku siyaasi u tagay oo ay soo baxdo waa meeshii markaasaan ka jawaabay hadduu se ama dan u leeyahay u tago ama dhaqan u tago dadku ma xidhnaa dadka dhaqanku way deetay karaan qaar badan baa tago haddii dan uu ka yeesho waa meeshii waxaa lagu eedeeyaa inaad ka tirsan tahay urur islaami ah oo